muuqaalkan in badan waa ka yaabin doonaa. guriga adiga leedahay email laga kireyste isku mid maahan walaalo. talo xumo iyo aqoon yari markay ku kulanto 1 bilyan ka waxa loo maleynaa intaas kun oo bilyan oo dollar. ruux walba guuleysta guushiisa dumara ka dambaysa. naama lagu furay oo doqonka statuskan ka fiiriya maalinta waxa soo dhigtid adkaata iyo qaaliban ku haya maanta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وويلكيني وولالكيني بقرطوية باحدة وين The Family Empire Boom boom in the house بقرطوية in the building ولا لا قلبي فضلا channel كاداكو عصب تاي like share comment subscribe ودحالك كلية أنكو قولها road to 1 million وأخير هذا والله بالدي إيكان إلي انت أسكاليساي جعل لمروه هالك مليون أو دوه إتا مركا كقدبنو asxaabtayda maanta waxaa idin hayaa reaction buuqiisa wata dhinacyo badan taabanaya koobka shaaxa agtaada soo dhigo okay muuqaalka ugu horeeya Getting married this week, innit? Allahu Akbar, mashallah, fourth one? No, not yet, not yet. Number 3, inshallah. Hassan's wife-to-be is of Somali origin and is almost 10 years older than him. As her husband, he will pay her a dowry and give her gifts. Hassan and his new wife have decided to keep the wedding very simple. How much is 10 chicken? How many people can eat? 10 chicken? Depends how you cut it. 7 or 8 of these chickens here. And then obviously he's going to cut them all up for me. And then with some bread and I'll bring some dates and some sweets and some drinks. £50. Done and dusted. It's a week after Hassan's marriage to Anab, the third wife. After that, I met a lot of sisters. Honestly, the marriage had a lot of problems. So I decided brother has a wife, maybe more responsible than when hasn't got any. waa kanahay gabdhahayna markaa dhan abay waa ku rabnaa 500 gram oo dahab ah hotel Hilton ay iga garaacaysa jabiga waa ka war mararka qaar waxa kugu dhacay panic attack oo naxnuun ya markay ka hadlayso afaaraha guurka ajnabi markay timaadana qaarkii hadday gabdhahayna mararka qaar chickenka saaq ay u jecel yihiin hadda kadib chicken ab u wax ee boo taaga aniga ya wareeg gabadhan hadda waxa lagu aroosay konton bang 10 xaba chicken ee ka war How much is 10 chicken? How many people can eat? 10 chicken? Depends how you cut it. 7 hadda kadib barfuun aan u isticmaalaa jeebkan gashana heer waxay mareynaa maanta ajaanibta qaar ayna dhahaan cheap and clean raqiis oo nadiif ah hadda been u malaysid google ka raadi waa hele okay muuqaalka xiga أنا أخونك بهانا ما أنا وحكرسا قوة لا يكفي قاص أنا حدان كوكر ساكن سعر دي حبا يكرنا ودك تغير ورالك كلين هذا ما أنا نقولك يشداء قوة إلهي ناقوينا وحكرشانا يسوق بيانا يدد في عينه قميس والله حدان وحكوكر ما أنا وحكرسا قوة لا إله نبى ناقو واحد بدنا يكون فرديا تلا نعم أردك سجي تبكي بوا يقدوقي إلى وهنا أنفي walaalkay hadaysan biyaha kulul garoonka diyaaradaha kaaga daadanin alxamdulilah ya nabar xaq darna ku dhacay ka waran yani dumarka mas'uuliyadda ay hayaan mararka qaar ragga haday isku dayaan wallahi ma ka soo bixi karaan waayo waxa arkaysaa hal hooyo cunugna xafaayada ka bedelaysa xaajigan cunto u karinaysa firaashkiisana hagaajinaysa waliba isku diyaarinaysa shaaxi casriyada iyo daangada inay xaajigeeda u sii sameeyso si ay TV-ga wada jir ay u daawdaan inta hoola isku haysa fiirib waa kartida mararka qaar dumarka ay ragga dheer yihiin waa idin wata aniga muuqaalkani waa muuqaal waaye aragnimo wata bal hal mar ila daawo waayo wax badan aan rabaa inaan iftiimiyo laamigaan ku soo qornay laamigeena u laabanayna waayo beebelkani waxaan anaga waxba kama fahansaneen walaalaha muslimiinta daraad noo istaaga isla walaalaha dhulka ku dhufay soo dhawaada Allah dali dibada xana daawada oo aad gaari caasiya shirkiisa aad saaranta oo muddo ku gudaysay xad dareemay waxaan dareemaa inaan wadi garan ku shaqaysan karo aan uga
laysigay waa wataa waxayga waa wataa asalka kuwaana wax ku baraysanay ilmahan ku korsanay ilmahan ku dhadhalnay alxamdulilah dana waxayna laamiga ilaa ku saaranahay laamiga saarnaa ilmahaas inaan korsanay farxadaan dareemayaa farxad ma dareemayso walaalkayga sababtoo ah shamuureyow habar waalida ku haysto maalintii hooyadaada aad caloosha hurisay oo ay calool hadashay ma lagaaga dambeynin idinkii shamuure anaa dhalay muga hada meel idlaa igu tagay talo xumo iyo aqoon yari markay kuu kulanto kula shay yar jacayla asli gaarigaada la ku laabanay 1 bilyan-ka waxa loo maleynaa intaas kun oo bilyan oo dollar inaan aniga helay ayaa loo maleynayay sababtoo ah fiiri waxaa jirta gabar la dhihi jiray xayaat qurux gabadhaasi iyo shamuurey hal mustaway ku taagnaayeen asagana Soomaaliya dhana u kacday iyadana Soomaaliya dhana u kacday laakiin gabadhaani fursadeeda waxay kaga faa'iideysatay sidii la rabay gabadhaani qudaar yar iska iibsan jirtay hal mar life inta loo kacay gift saa loogu diray kisti yar oo lacagta life-ka ay ka heshay business ay ku furatay oo cosmetic ah haddana isla businesskii waxay bilaabatay skills ah inay marketing u samayso oo bulshada ay ka iibiso naama lagu furay oo doqonka statuskan ka fiiriya maalin waxa soo dhigtid adkaata iyo qaaliban ku haya maanta gabadhaani businesskeedii waa u kala kacay heer maanta waxay maraysaa ay tiraahdo gabadhaan igu yeera hooyo abad waaba kugu yeerayna abaa sababtoo ah guri iyada ay leedahay dhisatay guriga saawada jeedin dhismadu waa la dhameeyay aad noo qurux badan yahay guriga adiga leedahay email laga kirasta isku mid maahan walaalo koow suuliga meeshan waa suuli saddex ab erna bariyaal qal raba isniinta ah bariyaal bana guriga loo duceeyo waa sababta loo leeyahay ruux walba guuleysta guushiisa dumara ka dambaysa ya way gabadhana tusaale noogu filan laakiin aw shamuurey jaaniskaada markuu ku soo maray lacagta ay jeebka kugu soo dhacday maxaa sameysay ma ka saaday 60 jir ku qaan gaartay ya swimming ku dhaxbood game iska ciyaar ya hooyada iyo xaaskaada inkirba ya iyaga dhan baraanka ka dhig familigaada dhan inkir laa maraxuuq leh soo qal wax aan haysana male gurigaana iskaaga noolna ugu dambeyn markay lacagta ka dhamaatay baskii shalay adroowalka ayaa haddana adoo caan ah Soomaali dhan ku taqaana wali daroowalka tahay halka gabadha qeyrkaadana maanta business ay u furan tahay marka Soomaali maxaa ay daadiis aad walaalkay ambulada Allah ku barakay saliidana kiilo si fiican u cun waxaan oo kale waxa la dhahaa xalaal dance ya jalbaba aroos lagu imaan oo lagu niikina xalaal dance ya la alaabta jini socod barad ay baa ku soo degay isleedahay qaabkay u dance garanayso hal garaba wallahi muuqaalka iga qosolsiyay muuqaalka ugu dambeeya ninkayga aan jeclaa markaa todobadii ka soo baxay waxay ugu furay sheer dartiisa adiga wiilow gabadhaada ma ku dalaaqaleed adoo ku jira todobadaada arooska sheer awgiisa mise wad u samir lahayd oo adaa dhisan lahaa oo reerkaaga gabadhaada carafteeda ka talin lahaa hadda abay waxa ay leedahay ma gabadha intaanan guursanin ka hor waxyar carfi sangal raac gabadhaani waxaa loo soo furay sheer dartiis ninkayga aan jeclaa markaa todobadii ka soo baxay waxay ugu furay sheer dartiisa marka gabarey haddii sheer dartiisa lagu soo furay kuwa waxaa jira sheerkaada uu barfuun u yahay waa imaanaha ha ka walwale adduunka rabitaanka naagta i haysa darteeda waddan dhan waa lagu qabsan karaa naag la-aad adduunka waa la wada dhiban yahay bye bye